kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaana ka mid ah qodobada ugu waaweyn maanta wararka Soomaalida Xaashi Cumar Xasan oo Muqdisho lagu khaarijiyay isagoona muddo dheer ku xirnaa dalka Talyaaniga dalkiisa hooyo u soo hiloobay markii uu yimid qarax loogu xiray gaarigiisa faahfaahin dheeriya oo ka soo baxaya ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan kadib muddo 3 cisho ah oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ku sugnaa dalka Turkiga waxa uu maantay kulan heerkiisu sareeyo uu la qaatay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo arrimo xasaasiya oo kulankaasi ka soo baxay barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan aynu ku bilownay Xaashi Cumar Xasan Allah naxariistay ayaa maantay u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa Xaashi ayaa wadanka Talyaaniga ku soo qaatay xabsi 19 sanadood oo ka mid ahayd 16 sanadood oo hore loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyay dilka gabar wariye Talyaani ahayd oo dhacay sanadii 1994 dilkaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho gabadhan ayaa ahayd Ilarani Albi oo ahayd 25 jir kana tirsanayd telefishinka TG3 iyo Rai Italia waxaana weelinayay kaamiramankeeda oo lagu magacaabo Miran oo isna lala khaarijiyay iyadoo arrintani asalka la galeysay siyaasiyiin caan ah oo Soomaaliyeed iyo kuwa ka soo jeeda maafiyada Talyaaniga iyo dad ganacsato ah kiiskaasi oo muddo dheer uu muwaadinkani u xirnaa Xaashi markii dambe wax dambiya waa lagu waayay waana la sii daayay sanadii 2016 xabsiga ku xirnaa waxaa xilliga loo xukumay magdhow la xiriira maadaama uusan gelin dambigaasi uu waqtiga dheer xabsiga ugu jiray magdhowgaasi ayaa Xaashi loo xukumay balse wareysi uu mar dambe bixiyay ayaa la sheegay in uu si cad u sheegay in aan u qalmin xabsiga uu ku jiray iyo lacagaha magdhowga ah ee la siiyay waxaana uu dowladda Talyaaniga markaasi ka codsaday in dib loogu noqdo magdhowgaasi isla markaasna uu qalmo in mid ka badan la siiyo lacagaha markaasi loo xukumay Xaashi wareysi laga qaaday 7 Juun 2016 ayuu waxa uu sheegay in uusan ku qanacsanayn habka magdhowga loo siiyay lacagaha weelay haddii aynu soo gudubno imaatinkiisii magaalada Muqdisho oo ahayd halka uu ka soo jeedo ninkani aanka ka ah gudaha bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa uu deganaa deegaanka lagu magacaabo Dharkeeley ama degmada Dharkeeley oo ka tirsan gobolka Banaadir waxaana la sheegay in gaarigiisa loogu xiray walxaha qarxa Xaashi ayaa dowladda Talyaaniga sidaan hore u soo sheegnay waxa ay siisay lacag $5 milyan taasi oo la siiyay muwaadinkani muddada u xirnaa waxaana lacagtaasi uu ka qabay muddo dheer uu ku sheegayay in ay tahay mid aan u qalmin markaasi xarigiisa uu waqtiga dheer ku jiray si kastaba haatee booliska Soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira cidda sida rasmiga uga dambaysa qaraxyadani dhinaca kalena magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaano ku dhow deegaanka Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhan ayaa ku soo aadaya xilli gobolka Banaadir ay ka socdaan howlgallo lagu baxsanayo dadka la sheegay ama dadka loogu magac daray weerarada kuwaasi oo geesta dil dhac iyo xatooyo xoogan iyagoona ciidamada booliska ay sheegeen inay soo qaban doonaan dadkaasi oo howlgallo dhowr ay sameeyeen ku soo qabteen tiro ka mid ah ciyaalka weerarada ee ka howlgala deegaano ka tirsan gobolka Banaadir وهاجاج قلب كحجر وحنا قندرة مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية مدحونا الشيخ محمود يوفدي وهجامني ودوانهن كسرنا ذلك تركيا أيام مانك صدحات وحى أي كلن ليشين مدحونا ذلك تركيا رجب طيب أردوغان كلن كاسيو كدعي مقالة أنقرة halkaasoo saraf uga qaatay Itoobiya ka tirsan ciidamada Turkiga waxaana loo riday 21 madfac sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha waxa uu hadda ka qayb galaya kulan isaga iyo dhigiisa Turkiga uga socda qasriga xarunta madaxtooyada dalka Turkiga Soomaaliya iyo Turkiga ayaa madax xoogani soo kala dhex galay kadib markii ay dhacday dowladii ay saaxiibka dhow la ahaayeen madaxweyne Farmaajo waxaana taas bedelkeeda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Erdogan haatan ay ka wada hadli doonaan sidii xiriir wanaag ay u samaysan lahaayeen labada dal oo ah dalal ay arrimo badan isaga xiran yihiin Turkiga ayaa mashaariic kala duwan waxa uu ka qabtaa Soomaaliya sababta gacanta ku haya dekada iyo airportka caasimadda sidoo kale sameeyay wadooyin
ay ku baxday lacag malaayiin dollara. Turkiga ayaa manaafacaad xooggan ku qaba dalalka bariga Afrika oo Soomaaliya ay ugu horeyso. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la filayaa in uu arrimaha ugu waaweyn ee xasaasiga ah uu kala hadli doono ay ka mid tahay qabqabashada iyo baacsiga dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga, taasi oo saameyn xooggan ku yeelatay ganacsigooda iyo naftoodaba. Waxaana wararka ka imaanaya xafiiska madaxweynaha ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ajendayaasha ugu horeysa ugu jiraan in uu kala hadlo dhigiisa dalka Turkiga sidii wax looga qaban lahaa beegsiga dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Turkiga. ciidamada ammaanka dalka Turkiga gaar ahaan waaxda socdaalka dalkaasi ayaa waxa ay xadgudubyo isdaba joog ku haysay dadka Soomaaliyeed ee dalkaasi ku sugan iyo ajaanibta kale oo ay qabqabanayeen isla markaa xabsiyada loo taxaabayay. waxaana arrintaasi oo aan lagu aqoon dalka Turkiga ay ku noqotay wejigabax dad badan oo qorsheynayay in ay halkaasi u tagaan dalxiis iyo dad doonaya inay hanti ka samaystaan ama ay maalgashadaan dalka Turkiga. Turkiga oo dhawaanahan ahaa dal furfuran isla markaasna dadyooga caalamka ay aad ugu jabeen ayaa arrintaasi waxaa la filayaa in uu jawaab cad ka bixiyo Mr. Erdogan oo doorashadiisu ay soo socoto dhowaan, ama doorashada dalkaasi arrimaha ay dhowaan soo socoto, taasi oo tartan adag kala kulmi doono kooxaha kale ee ka soo horjeeda xisbiyo mucaarada kuwaasoo isku tagay oo doonaya in ay xafiiska markaasi kala wareegaan Mr. Erdogan oo ay ku tilmaameen nin wadanka u gacan gelinaya dadka shisheeyaha ama dadka dalalka kale ee ka yimid ee ku soo jabay dalka Turkiga. oo Erdogan uu arko in xadaaradaha dalalka kale dadka ka yimid ay wataan ay u baahan yihiin dadka dalkiisa kuwaas oo ay ka anfacayso dhinacyo badan. waxaana la filayaa kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga inuu noqdo mid mira dhala oo ay ka soo baxaan qodobo farax geliya dadka Soomaaliyeed ee dhawaanahan baacsiga lagu hayay ee ku nool gudaha dalka Turkiga. wixii warar ee ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. fadlan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, like si lana wadaag asxaabtaada.